bal marka hore ila eega tixdan uu mariyey gabyaagan reer magaalka ah ee aanan magaciisa helin. gabyaagan uu jacaylku laf iyo ludba ka saameeyey meelo fogfogna la gaaray. si ay ku dhacdayba wuxuu ninkani awoodi kari waayey gabadhii uu jeclaa inuu ku guulaysto. sida muuqatana dhul kala fog ayay labadoodu ku kala sugnaayeen. markaas baa waxa u soo hadhay inuu gabyo oo keliya, in xanuunka haya uu bulshada la qaybsado, in kolkuu waayo joogaba uu fariimo maanso gabadha u diro, uguna sii dhiibo kolba ciddii uu la kulmo oo dhulkii ay joogtay u socota. gabadhaas oo Zaynab lagu magacaabi jiray markaana ku sugnayd saaxil oo ah waayadii hore magacii berbera loo yiqiin, ayuu tixdan soo socota gabyaagu ugu sii dhiibay nin magaalada u socdayoo Saalax la oran jiray. isaga oo muujinaya jacaylka uu Zaynab u hayo iyo waxa uu marsiiyey ayuu yidhi: saalaxow, adaa soconayo qaatay sahaydiiye, salaama alla yeeliyow, haddaad saaxil nabad gaadho sawdiraan ku faro iiga gee, Zaynab waad heliye. saqda dhexe allaylkii hurdada waan ka sararaadheh, soortana ma cuno aawadaa saa'im saanahay dheh, 3 goortii aan qado ayaan subax qureecdaadheh, waxaan sarara weynaa baryahan samay ka dhuubnaadheh, saraawiishi waa iga bateen igu samaysnaadheh, hadba aniga oo soconayaan sare u qaadaadheh, salaan qura haddaad soo dirto subaxda ii keeno, adigoo sariir ila fadhiya kama sokayseendheh, sidii aan santari gaarahoo saami lagu qaybshay shirka gaariyadan kaa dayaasaan u taagnahay dheh, ma samrine sidaad ii ogayd waan ku sugayaa dheh. sida ay dad badani weli xusuusan yihiin, allah u naxariistay cali cilmi afyare wuxuu ku jiray maansayahanadii soomaalida ee sida weyn u caanbaxay qaybtii labaad ee qarnigii 20aad. wuxuu ahaa gabyaa miro waaweyn iyo luuqba la isugu daray oo sidii waayadii hore maansada u curiya, mar uu gabyo, mar uu geeraaro iyo mar uu jiiftada ku wahsadaba. inkastoo uu soo gaaray xilliyadii heelada iyo heestu ay cirkaa marayeen, haddana marna iskuma uu dayin intuu xaggooda u bayro inuu wax ku curiyo. hase ahaatee wuxuu ka mid ahaa iyagoo hababkoodii hore adeegsanaya hal abuuradii ujeeddada jacaylka maansadooda wax ka siiyey. waxaana loo hayaa 2 gabayoo markaad dhegaysato aad ku iloobi karayso meelisyadii dabacsanaa ee heelada ujeeddada caashaqana loo curin jiray. labadaas gabay midkood ayuu cali afyare wuxuu u tiriyey amaba ka tiriyey jacaylkiisii ku saabsanaa gabar Safiyo Cismaan la oran jiray oo har iyo hoyaadba u diiday, daraaddeedna jidhkiisa iyo naftiisaba uu walbahaarku xubin xubin ugu fiday. wuxuu ku bilaabay: niman yahow sabaan baa i helay sanada maanta ahe, samadiyo waxaan marahayaa saanigaa dhexe hadba aniga oo suuxay baan soo hinqanayaaye sahal hayga moodina, cishqigu iga sal weeyaane. xalay saamalaylkii kolkuu uunku wada seexday, anigiiyo santari gaar hayaa joogna suuqyada waxaan sugayey mooye cidlaan saakunku ahaaye. sidii culimo soon xiratay oo soorti cuna weyday, ama niman siraadeen qabtay ee sool la dhugatoobay, ama qolo safay noqotay oo saxalku meeraayo, waxa sabarku ii dhuubtay waa faalla saa'ide. tan iyo sababa seeraha hobyood, soolka cadadheero, sagag iyo waddadii saaxil iyo sabadkii Nairobi, Sangafuura, Suudaani iyo Sayrac gudaheeda, soojada intii qoratay iyo magaca Soomaali sabaad midabkireeye hablaha way u sidatay. markaas buu u gelayaa sababta uu inanta ku calmaday iyo ammaanteeda, xubnaha oogadeeda, dabeecaddeeda macaan iyo sheekadeeda soo jiidashada leh intaba. ugu dambaystana wuxuu naftiisa u sheegayaa si uu yeelaba sida ay uga go'an tahay Safiyo inay tiisa noqoto. wuxuu yidhi: sanqaroorka laga saaray iyo sunnida iyo foolka salaanta iyo sheekada, kolkay sararta kaa joogto salxanyaha wejiga iyo timahaad suuri carab mooda sacabkeeda nuur kale, kolkay garabka kaa saarto ama yaraha sii socoto oy saanta tirinayso suuqii bannaan, iyo kol baan marinka sheegay. sanbabkiyo waxay igaga taal seeda dhabarka ah ee ka sahwiyey, salaadiyo sunnahan sii rukuu celiye, sinaadkeeda waa laga baxshaa soofka dunida. sawir lama ammaanto ee yartani saxarla weeyaane, haddii aan sanadu ii diidin iyo suuraddiiyo sheekhu saaxiibnaya iyo wax badan sabansabdheeyaaba, walle aniga Safiyo Cismaan waisku soconay. suuqii bannaan iyo kolbaan marinka sheegayay, sanbabkiyo waxay igaga taal seeda dhabarka ayay ka sahwiyey, salaadiyo sunnahan sii rukuu celiyey, sinaadkeeda waa laga baxshaa soofka dunida. iyo sawir lama ammaante yartani saxarla weeyaane, sawir lama ammaante yartani saxarla weeyaane, haddii aan sanadu ii diidin iyo suuradiyo shiikhu saaxiibnaya iyo wax badan sabansabdheeyaaba, walle aniyo Safiyo Cismaan way ku soo